nabadgelyo markaa maqan yihiin carruur kaaluntay ma aragtay ilmo tiro badan oo maalin kasta la baafinayo xaguu ku yaala xafiiska lagu iibsado xubnaha jirka bini'aadamka yaase ka dambeeya sirdoonka Soomaaliya ayaa helay xog sheegaya in Hana Abuukar ay ka dambeysay carruur la waayay oo gudaha Soomaaliya laga watay kuwaas oo aan la garaneyn meel la geeyay. Hana Abuukar ayaa sidoo kale waxa la ogaaday in ay u shaqeyso wakaaladda dhanka xubnaha bini'aadamka iibsata taas oo ay ka tirsan tahay hay'adaasi, waxaana la sheegay in muddooyinkii ugu dambeysay gudaha Soomaaliya ay ka waday olole ka dhan ah in dumarka Soomaaliyeed iyo carruurta ay u iibgeyso dalka dibaddiisa. Hana Abuukar ayaa maalmihii ugu dambeysay si weyn lagu hadalhayay baraha bulshada, taas oo soo shaac baxday dhowaan markii ay Muqdisho ka soo degtay, halkaasina lagu helay xogo gaar ah oo sheegaya in Hana ay doonayso in halkaasi ay ka soo wado carruur Soomaaliyeed iyo sidoo kale gabdho ay rabto in kaliyaha iyo beerka ay u iibgeyso. Waxaa la sheegay Hana in iyadu ay koox wadato, kooxdaasina ay ku sugan yihiin dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Waxaa muddooyinkii ugu dambeysay soo baxaya warar sheegaya in carruur Soomaaliyeed la waayay kuwaas oo aan la garaneyn meel cirib iyo jaan ay dhigeen, waxaana soo bixi jiray oo hadalhayn ay ahayd in carruur Soomaaliyeed la waayay kaliyaha iyo beerkana lagala baxay oo aan shaki weyn ku abuuray bulshada Soomaaliyeed. Arrintan Hana Abuukar ee hadda soo baxday ee baraha bulshada sida weyn u qabsatay ayaa muujinaysa in Hana ay tahay shaqsigii inta badan ka dambeeyay in carruur Soomaaliyeed la waayo, kuwaas oo looga shakisanaaba in carruurtaasi la xaday. Hooyooyin Soomaaliyeed iyo sidoo kale dad bulsho ah oo ku nool gudaha Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in ay waayeen carruurtaasina ay ku tuhunsan yihiin Hana Abuukar oo lagu soo cadeeyay in ay ka mid tahay dadka loo soo diray gudaha Soomaaliya si ay carruurtaasi uga ganacsato xubnahooda. Hana Abuukar, kooxda la shaqeysa iyo tiimka ayaa si duumasho ah ku yimaada Soomaaliya, kuwaas oo iska dhiga inay yihiin dad dhulkoodii hooyo jecel oo booqashada ku tagay, waxaanay inta badan isku dayaan in gabdhaha Soomaaliyeed ee aadka u da'da yar leh in ay ku qanciyaan in ay nolol cusub u abuurayaan ama ay geynayaan dalka dibaddiisa, waxaanay inta badan u soo diraan lacago ay doonayaan in ay ku kasbadaan. Hana Abuukarna waxay ka mid noqotay shakhsiyaadka aadka loogu tuhunsan yahay. Sirdoonka Soomaaliyana waxay ku wadaan baaritaano cusub, waxaanay soo saareen hordhacyo ah in Hana Abuukar ay tahay shaqsiga waxaan ka dambeeya. Isku soo wada duub, Hana Abuukar iyo shakhsiyaadka kale ee lagu raad jooga ee sheegaya in ay ka dambeeyeen carruur la waayay oo Soomaaliya ku sugnaa, kuwaas oo ilaa hadda looga shakisan yahay in kaliyaha iyo beerka lagala baxay oo dalka dibaddiisa loo dhoofiyay. Arrintan ayaa mucjiso ku noqotay bulshada Soomaaliyeed, kuwaas oo arkayso inta ugu badan hadalhaynta baraha bulshada ay ka wadaan, waxaana toddobaadkii ugu dambeysay ay noqotay Hana Abuukar shaqsiga aadka ah loogu dhagan yahay, waxaana inta badan bulshada Soomaaliyeed isku dayda inay kasbato baraha bulshada kusoo gasha iyada oo duca iyo xadiis iyo tafsiir akhrinaysa, sidoo kalena waxay iska dhigtaa qof diinta ku talax degay oo wanaagsan. Bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka dhibaataysan, gaar ahaan dumarka, waxay iskaga dhigisay shaqsi inta badan u wanaagsan oo ka damqanaya, laakiin danta ay ka leedahay ayaa ka weynaa. Si kastaba haatee, hadalladan iyo sidoo kale shakiyadan waaweyn ee Hana Abuukar lagu soo oogay lagana muujinaya ayaa ah mid is soo taraysa marba mar ka dambeysa, waxaanay u muuqataa Hana Abuukar in hadda ay dadka qaar doonayaan in ay cadaaladda mutaysato, baaritaano xoog waaweyn lagu sameeyo, maadaama ay tahay shaqsi inta badan dadka Soomaaliyeed ay shaki ka abuureen, taas oo dhowaan la ogaaday muuqaalada iyo sawirada baraha bulshada dhex yaacaya ee ay leedahay Hana Abuukar ayaa dadkana aad u shaki geliyay. Shakhsiyaad waxaa jira ka agdhow oo iyagana baraha bulshada kaga hadlay arrintaasi oo sheegay in Hana ay ku ogaayeen arrinkaasi, laakiinse markii hore ay ka gaabsanayeen oo dadku aanay markii horeba u malaynaynin in Hana ay tahay shaqsi xun oo dadka Soomaalida
rabta in ay wanaag kusoo jiidato kabacdina ay tahay shaqsi dad qalata ah oo doonaya in caruurta Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed inta ay lacago sidoo kalena ay ka caqdi badiso ay dhoofsato taasina ay markasta ay ku xidhan tahay qolyo cadaan oo wakaalada iyo hay'ado isugu jira kuwaasoo dalka dibadiisa ku nool oo dhoofinaya waxaana arrinkani uu noqonayaa arrin ku cusub gudaha Soomaaliya waana markii ugu horeysay ee la soo ogaado shaqsi Soomaaliyeed oo waxaasi ku ganacsada ama ku dalaala waxaana la sheegay in Hana Abuukar ay tahay dadka waxyaabahaasi ka ganacsada xubnaha jirkana ay muhiimka ahna ay inta badan ku ganacsato waxaana isweydiinta mudan waqti xaadirkan ee la ogaaday goorma ayaa se la soo gabagabeyn doona baaritaanka cad ee lagu hayo Hana Abuukar sidoo kalena xabsiga ayaa hadda waxaa la sheegay in Hana Abuukar loo diiday ehelkeeda in ay soo booqdaan maadaama kooxaha lamaha ammaanku ay ku tilmaameen arrinkeedu inuu yahay arrin cusub oo aan faamilka xitaa loo aqbali karin inay gudaha u soo galaan jeelka oo ay ku soo booqdaan waxaana loo sheegay in ay goobta isaga tagaan oo haba yaraatee aanay u iman karin mar dambe